arinta ugu horeyso kibirka ku saabsan nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi si cadeeyay quraankuna meelo fara badan waa faahfaahiyay laakiin waxaynu ku gaabsanaynaa halka xadiis ku yimid fi sahih muslim nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri ruuxi dhinta asaga oo qalbigiisa ay ku jirto waxa ugu yar wax jira waxyaabaha jira waxa ugu yar oo ishuba xataa ayna qaban kareen oo kibir ah ruuxi qalbigiisa isagoo ku jirta dhintaay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam naartu galaya jannada gali maayo ruuxi dhinta asagoo qalbigiisa wax yar oo kibir oo ku jiro saxaabadu ridwaanullaahi calayhim hadalka markuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ayaa waxay ka fahmeen kibirka laga hadlayo macna kale ka fahmeen waxay ka fahmeen ruuxu inuu isqurxiyo oo dhar quruxsan iyo kaba quruxsan inuu qaatay u fahmeen markaasay su'aasha nabiga weydiiyeen sallallahu alayhi wasallam waxay yiraahdeen rasuul ilaahay ruux kasta waa jecel yahay in maradiisuna quruxsan tahay kabihiisuna quruxsan yihiin ee sidaas janno lagu gali maayo miya khatar ba markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam alla waa quruxsan yahay quruxdana waa jecel yahay macnaheedu fahanteen ma aha way quruxda alla waa quruxsan yahay quruxdana waa jecel yahay kibirkana macnaheedu fahanteen ma aha way kibirku wax weeyaan laba qodob buu nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam waa in aad dadka yasto oo xaqirto xaqana aad inkirto diido labada qodob buu nabigu ku ururiyay kibirka salawaatu rabbi wa salaamu alayhi makhluuqa iyo dadkaasi inaad hoos u fiiriso u aragto inaad ka sidato inaad ka fiican tahay inaad ka nasab fiican tahay inaad ilaahay agtiisa kaga wacan tahay inaad ka qiimo fiican tahay haddaabad isu haysato qalbigaaga ay ku jirto inaad dadka ka sidato macnaheedu waxa weeye waa kibir ujbi waay wabitaali dadkii aad ula dhaqanto sidii wax ka hooseeyo oo kale ama dadkoo dhan ku samee ama dadka qaarkood ku samee qodobka labaad ee nabigu kibirka ku qeexay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa weeye xaqi oo ku cadaaday oo aragto inuu xaq yahay in aad inkirto diido oo baal marto oo aad ka leexato taani waa nooca labaad ee kibirka weey kibirku waa kii ku xambaaray ibliis inuu amarka alla diido inuu rabbi tabaaraka wa tacaala amarkiisa qaato oo aadam uu sujuudo waxa uu diiday ku kallifay inuu madaxa taago kadibna lacnada ilaahay inay raacdo naarna sida ku waajibsado waxa keenay waxa weey kibir iyo isla weynan buu ah marka kibirku jannadu ruuxa ka qadiya naarna waa galiya sidaas daraadeed ruuxu waa inuu la dagaalamo cudurkaasi waa cudurrada shaytaanku soo galiyo nafta loona baahan yahay in aad la isaga sifeeyo ruuxu uu la dagaalamo waa